wanaagsan saaxiibada qiimaha badan meelo boodonada ka joogtaan kusoo dhawaada akhbaar cusub aan kasoo helnay taxane herjaya sidaan shalay idinkula wadaagnay waxaa lasoo bandhigay wareysiyo kala duwan oo laga qaaday gabadha taxane herjaya iskale oo misna qarash gareynaysay wareysiyadaasoo ay kaga hadashay season 3 iyo su'aalo badan oo ku saabsan ay ka jawaabtay taageerayaasha herjaya oo si live ah ku weydiiyeen misna ay ka jawaabtay haddaba qaar ka mid ah su'aalahaas waan idiin soo gudbinay sidoo kaleetana waxaan idiin soo gudbinaynaa maanta su'aalo kale oo iyada laga soo xigtay jawaabaheeda iyo sidoo kaleetana arrimo kale oo xiiso leh oo ku saabsan taxane herjaya saaxiib nagu cusub oo na soo boqda data fadlan kanaalka subscribe saaro gambaleelka kulus si wararka notification ahama degdeg ugu soo dhacaan saaxiibtada la wadaag oo share dheh su'aal wixii aad ka qabtid hoos comment ahaan inoogu reebad warbixinteena hadday ka sheegnay like inoo sar qodobka koowaad aan kaga hadlayna taxane herjaya aan kasoo helnay akhbaaraadka maanta waxaa ka mid ah rayaan dhaawac ayaa soo gaaray ee dhahay markii xalqadii saddexaad ay duubaysay xalqadii saddexaad sidaan wada ognahay ee season 1 ama qaybtii koowaad ee taxane herjaya xalqadii saddexaad qofkii daawada ayaa daawaday rayaan dhaawac rasmi ayaa soo gaaray xilli ay duubaysay muuqaal halis ah muuqaalkaasoo ah gurigii gaarka ahaa ee miiraan uu ku aroosay miiraan markuu rayaan ka argoorsanayay argoosina uu sameynayay aroos been ayuu la aqalgalay habeenkaasi halkaasi ayay labadoodiina ku aqalgaleen subaxiina meesha ayuu kaga dhaqaaqay haddaba rayaan waxay ku dhaqaaqaysaa ficil ah ay nafsadeeda halisgelinayso guriga oo dhan ayay dab qabsiinaysaa haddaba dabkaasi photoshop ma ahan muuqaalo aalada VFX la isticmaalana ma ahan waa dab rasmi ah oo la shiday kooxda taxane herjaya shidayn rayaan ayaana dabka la dhex fadhiisiyay qolka oo dabka ka dhex daaran waana halis weyn oo nafsadeedii halis ay ku gashay haddaba rayaan nafsadeedii halis ayaa gashay marka muuqaalkaas ay duubaysay markii muuqaalkii la duub intii muuqaalka lagu gudi jiray dhaawacyo ayay soo gaareen jirkeedii oo dabka garabka bidix ayaa dhaawac kasoo gaaray ayaa la sheegay marka rayaan muuqaalkaas nafsadeeda halis ayuu ku galay akhbaaraadkan waa la qariyay laakiin gadaal dambe ayaa laga ogaaday si gaar ahaan shalay si rasmi ayaa loo soo bandhigay oo rayaan in dhaawac uu soo gaaray gaar ahaan gabadha qarash gareynaysa ayaa shaaca ka qaaday marka rayaan dhaawac garabka ayaa soo gaaray xalqadii saddexaad ee season 1 markay duubaysay qodobka koowaad halkaas ayaan kaga bixinaa waxaan filaynaa inaad si fiican u fahanteen qodobka koowaad qodobka labaad wuxuu yahay xilliga rasmiga ay taxane herjaya la daawanayay gabadha qarash gareynaysa waxaa laga soo xigtay ciidul adxa kadib in herjaya la daawan doono taageerayaasha herjayana arrinkaas ayay la wadaagtay ciidul adxa waxay ku beegan tahay September sidaan wada ognahay marka 3 bil kadib isku diyaariyay taxane herjaya qofkii taariikhda miilaadiga xisaabsanayo September xisaabso in taxane herjaya September la daawan doono qofkii si taariikhda hijriga xisaabsanayo hasku diyaariyay ciid weynayda ama ciidul adxa sida u taqaanaanba oo bisha Carafa ah oo inaad isku diyaarisaan taxane herjaya ciidul adxa kadib 3 isbuuc kadib ayaa la daawan doonaa ay dhaaday markii ciidul adxa ay dhamaato 3 isbuuc kadib taxane herjaya xalqadii koowaad ee season 3 ama qaybtii saddexaad ee season 3 ayaa la daawan doonaa sidaas ogaada waa taariikh rasmi ah meelna ku qorta in ciidul adxa ama ciid weynayda kadib taxane herjaya soo laaban doono ama bisha September sidaas ku xisaabsada qodobka saddexaad wuxuu yahay waxyaabaha ugu xiisaha badan aan ku arki doono season 3 taxane herjaya markuu soo laabto in waqtigu soo laabanayo waa in idin sheegnay rayaan inuu dhaawac soo gaareen waa idin sheegnay laakiin waxaan qodobka saddexaan ku falanqeynayna wuxuu yahay waxyaabaha ugu xiisaha badan ee rasmiga ee shaaca laga qaada ee la hubo xan iyo waxyaabahaas ma ahan markii hore waxaan idinla wadaagni jirnay waxyaaba internetka aan kasoo helnay iyo waxyaaba xan ah laakiin qodobada maanta aan idin wadno dhammaantoodii waa rasmi la hubo oo shaaca laga qaaday qodobka koowaad wuxuu yahay uurka rayaan inay uur qaadi doonto ayaan taxane herjaya ku arki doonaa markuu soo laabto qodobka labaad wuxuu yahay miiraan iyo rayaan oo faqiir noqon doonaan ayaan arki doonaa guri aysan lahayn ayay degi doonaan guri dadow ayay ku noolaan doonaan nolol xumo ayay geli doonaan ninkii miiraankii taajirka ee xaragoonaya baabuurta wata guryaha reer islambi ku noolaa ma ahan faqiir ayuu noqon doonaa guri dadow ayuu ku noolaan doonaa rayaan halkaas ayay uur ku qaadi doontaa libis aan
labis aan shidnayn ayay ku labisan doontaa gabdhaha reer mardin labiskoodii dhaqankooda ayay dhexgeli doontaa Rayaan marka qodobadaas ayaan ku arki doonaa qodobka saddexaad oo rasmiga lagu arki doonaa wuxuu yahay Aziza Aslambi waxa ku kalifay inay argoosigan reer Shadow ku qaado weerarka ku qaado waxyaabo badan ku sameyso maxaa ku kalifay argoosigeeda sababta ka dambaysa muxuu yahay maxaa laga helay qiso hore ayaa laga sheekeyn doonaa season 3 ayayna ku arki doonaa waana rasmi shaaca laga qaaday saddexdaas qodob ayaan idin la wadaagni qodobka afraad wuxuu yahay oo rasmiga ah Azad oo jeclaanay gabar aan Rayaan ahayn taxnay herjay intaan daawanayna waxaan wada ognahay in Azad uu jeclaan jiray Rayaan xitaa Elif oo xaaskiisa ama jecel oo ma qaadin Elifna way isdishay markay ka qursatay Azad inay qalbigiisii hanato haddaba ugu dambeyn Azad ayaa taxnaa markuu soo laabto Azad oo jecel qaadi doona iyo gabar kale jeclaan doona ayaa la arki doona gabadhaasna Rayaan ma ahan waa gabar kale haddaba gabadhaasi kale tahay Magonil Aslambi ba mise waa gabar kale oo taxnaa soo gali doonto waan wada ogaan doonaa midaasi laakiin haddeer waxaan shaaca idinkaga qadno oo rasmi ah in Azad jecel gali doono gabar aan Rayaan ahaynna uu jeclaan doono qodobka ugu dambeeya rasmiga ee la hubay taxanaha herjay markuu soo laabto dhici doono waxaa ka mid ah dad cusub ayaa taxanaha soo gali doonaan taxanaha waxaa soo gali doonaan dad cusub oo rag iyo dumar isugu jiraan atooriyaal iyo atirishooyin ayaa soo gali doonaan Miiraan iyo Rayaan la tartami doonaan qaarkood waxay noqon doonaan Rayaan aabaheed inay noqdo mid ka mid inuu noqdo waa macquul Dilshah inay noqoto waa macquul dad ayaa soo gali doonaan misna doorar halis ah jili doonaan intaas waa wax xog la xubo oo rasmi ah misna shaaca laga qaado waxaana shaaca ka qaaday gabadha taxnaa qarash gareynaysa waxay tiri dad cusub ayaa soo galayaan waa rasmi gabadha taxnaa qarash gareynaysa warkay dhahdaan waa rasmi sababtoo taxnaa iyada iskale waxay ku dhawaaqadeen rasmi way qof kale oo iyada ka dambeey oo warkan beenin karana ma jiro marka waxay ku dhawaaqday in dad cusub iman doonaan in Azad jecel qaadi doono oo Rayaan gabaraan ahayn uu jeclaan doono Aziz wax ku kalifay argoosigan iyo argoosigeeda sababta ka dambayso oo shaaca laga qaadi doono Miiraan iyo Rayaan oo guri aysan iyaga lahayn in nolol xumo kon gali doonaan uurka Rayaan oo shaaca ka qaaday shantaas qodob shaaca ay ka qaaday hadda waxyaabaha anaga ahaan reer film sad media hadii aan nahay waxyaabo aan qiyaasna ay jiraan oo inay dhacaan la filayo intaas waa wixii xogti rasmiga ahayd waxyaabo anaga ahaan aan qiyaasnay misana saadaalanay inay dhacaan taxnaa herjay markuu soo laabto waxaa ka mid ah Miiraan oo ogaan doona in Hazar abiisi yahay Dilshah oo soo baxayso marka Miiraan inuu taxnaa abiis Hazar inuu yahay inuu ogaado waa qasab waa lama horaan waana wada sugaynaa sababtoo taxnaa ma dhamaanayo ilaa Miiraan uu ka ogaado abiis inuu yahay Hazar Shadow Dilshah ayaa soo baxayso Dilshah inay dhimatay ilaa hadda ma caddo qofkan hadda intiina codkan hadda dhageysanayso qof inoo rasmi ay noogu shaaca noogu qaadi kara ma idin ku jira in Dilshah dhimatay muuqaal flashback ahna laguma tusin inta taxnaa daawanayni qaybka Dilshah ay ku dhimatay kaliya inay xabad ku dhacday ayaana la tusay inay dhimatay nafta ka baxdana lama tusin Hazar Shadow ayaa dhahay Dilshah way nooleed markii uu riyada ka soo booday misna uu soo xasuusanay habeenka sida wax u dhaceen qabrigeeda waana la tusay gabadha qarash gareynaysa waxay dhahdeen Dilshah way dhimatay dhahday laakiinse warkeedii gadaal dambe waxyaabo badan ayaa ka dambeeyay oo iska saxeen marka gabadhaasi su'aashaasi markii labaad la weydiiyay oo la dhahay Dilshah ma nooshahay taxnaa ma soo gali doontaa way ka gaabsatay marka waa arrin weyn oo la qarinayo oo daawadayaasha herjay laga qarinayo Dilshah inay nooshahay inay dhimatay wali si rasmi ah looma kala shaacinin si rasmi ah looma kala hubo dhimashadeedii marka waxay u badan tahay season 3 in Dilshah soo bixi doonto waa saadaasheena laakiin lama hubo laakiin way u badan tahay qof walba maskaxdiisa ka shaqeysay in Dilshah ay nooshahay ayna soo bixi doonto qodobka kale wuxuu yahay Aziz qaraabadeeda oo la heli doono xalqada herjaya xalqadii u dambeeyay markaan daawadinay Jihaan wuxuu baadigoob ku jiray Aziz qaraabadeeda iyo qof u dhow inuu helo Suldaana ayaan u tilmaantay qof ka mid ah marka Aziz qaraabadeeda waa la heli doonaa Rayaan aabaheeda oo la arki doono waa qasab in Rayaan aabaheeda uu soo baxo Rayaan aabaheedina وانا mid ka mid ah qodobada aan saadaaladhay misna qiyaasnay Rayaan aabaheeda in la helo waa qasab waayo Rayaan qofka dhalay misna aabaheeda rasmiga in la ogaado waa qasab marba hadaan ogaanay in Hazar Shadow uusan aabaheeda ahayn waa in qasab inaan ogaano Rayaan aabaheeda qofka uu yahay season 3 ayna ku arki doonaa waa saadaashan ee qiyaaskeena qodobka kale wuxuu yahay qaybkii guriga beerta dabka uga kacay iyo jecelka nasoo Aziz oo flashback na lagu tusi doono ama qayb xusuusana lagu tusi doono waa qasab inaan aragno hadaan daawadayaasha herjayanahay sidee guriga
gurigaasi dabka uga kacay, sidii Casiis Aslanbey reerkeedii ku baaba'een, wejiga qaabkii ku bedelatay iyo qisada reer Aslanbey ay kusoo dhex gashay misana reer Aslanbey ay ku kasbatay. Marka waxyaabahaas oo dhan in la tuso ama muuqaal kooban xitaa laga diyaariyay way ku qasban yihiin kooxda Taxane Herjaaye si daawadayaasha loo qanciyo. Qodobka u dambeeya wuxuu yahay Yariin oo shar weyn la iman doonto. Yariin markii u dambeysay guriga waa laga bariyay, Haaruun ayaana si qasab ah loogu daray maadaama dhibkeeda uu batay. Haddaba Yariin sidaas kuma aamusi doonto, si Taxane xiiso u yeeshta si season 3 u dheeraado waa in Yariin laadirad labaad laga dhigaa. Sida guudna Taxane laba laadir ugu weyn ayuu leeyahay. Laadirka koowaad waa Casiis Aslanbey, laadirka labaadna waa Yariin. Qofkii Yariin garanaya ayaa garanayo. Taxane Yariin haddii ka maqnaan lahayd xiiso ma yeelan lahayn, waayo Rayaan qofka dhibka u geystay, dhibka ugu badan u geystay waa Yariin. Yariin qaskeeda iyo foodadeeda ayaa badnaa. Marka Yariin inay soo laabato laadirad weynna soo noqoto, wax badanna qasto waa la filayaa oo season 3 sii macaanaado. Si gaar ah haddii Rayaan cunug dhashay, Rayaanna cunugaasi inay Yariin ka afduubato ama dhib kale ay geysato, iyadoo waliba awood leh markan ayay soo laaban doontaa sida aan qiyaasanay misana saadaalanay. Qodobadii xiisaha lahaa ayaan kasoo diyaarinay Taxane Herjaaye, intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Qaar waa saadaalin iyo qiyaas anaga aan sameynay, halka inta kale ay hubaal yihiin oo rasmi ah oo la hubo oo aan kasoo xiganay kooxda Herjaaye. Gabadha qarash gareynaysa Taxane Herjaaye si gaar ahaan waraysi ay bixisay oo qaybtii labaad halkan idinkugu falaqaynay. Kanaalka daa ku cusub tahay subscribe saar, waa maasantiin daawadayaasha qiimaha badan. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.